السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا فلانقين تاني أسبوع لها إن ما عنده حرام إن كهله إن فلانقين لعجها أسبوع سؤال إن شاء الله لعجها من لعج تنكلي أورو يوز دولار أسبوع سؤال إن سيدا وجدا أورو يوز دولار إن مانتلي وح بدليل منها ما يشي لعج تاعي أنت ما دليل مركا أركتين so waxaan sugaynaa monthly waa inuu dhaco something like this in pullback aan samayso and then emission taabato and then baxdo sidaas u dhacdo waxa weeyaan can take probably 6 months or something or 4 months or something so waxaan hadda marka aan xoog saareen ma baahan ba monthly laakiin aan la socotaan xaaladda ku jiro so supply gaan inay u noqonayso u egtahay and then ay sii soconayso haddii inta jibisana waxaa dhacay monthly chok macnaheeda suuqan bay u qaadanayaan okay weekly aan kusoo noqon marka hadda markaan ka hadlayo waxyaalo waxaa jira aan ka hadli doona oo ah chokyada so inay ila fahantaan aan u baahnahay so haddii aniga aan ku jiro monthly time frame okay oo pullback uu yahay monthly time frame okay si aniga demandiga oo 50% ugu jira hanta extreme ka interrupt ha si li igu taga xagga waa inuu dhaca weekly maxaa la dhahay chop oo yariis ah marka maanta lagu jiro yariis waa laakiin markaan week jiro waa the change of trend waa inuu dhaca weekly chop okay markuu time frame kan yahayna week waa inuu dhaca daily chop si li igu tago supply ama demand soo socdo markuu yahay daily time inuu 4 hour chok dhaco markuu 4 hour ka yahayna waa inuu 15 minute chok dhaco markuu 15 minute yahayna waa inuu 5 minute ama 1 minute chok dhaco so taas in markaan indhaha chok baa dhacay kuwinta xaggaas la tagay la socdo so let's go back to weekly marka kan monthly naga xirkan weekly noo fur way adiga weekly monthly dhak okay monthly hadda aragna waxaan u jeednaa in supply gaanid oo weekly la soo taabtay kadibna supply in demandiga sorry isku qasay demandiga week intii la soo taabtay ee lacagta pullback ku jirto so lacagtaanito si ay u tagto demand supply gaanito waa inuu daily chok dhacay so daily chokna wuu dhacay hadda fiirsaan waa kana chokidayga boom ma baxda lacagta si kala fiirayso so waa ina ka arki kartaan ba inta so chokga wax kana intuu ka dhacay chokga intuu ka dhacay waxaan sugeynaa lacag intuu ka dhacay waxaan sugeynaa lacagta inay pullback samayso and then baxda okay oo demandigaas tagso so maadaama daily chok dhacay aniga hadda waxaan ku geysanahay in aan dhaho lacagtan buy ahaanaysa ilaa demandiga oo laga soo taabto weekly hadduu weekly chok dhacano macnaheedu waxa waaye waxaa loo socdaa monthly supply okay monthly supply awe waa kana so hadduu kan intuu jabiyo direct loogu dhowdahay so inuu ka soo taabto ay soo dhacdo lacagta ama si xataa uu monthly chok intuu sii sameeyo uu sii aado probably I don't know 4 months chok 4 months supply ما بجري لكن just to give you an example so هذا مركب maxaan sugeynaa anaga hadda maanta laga xirno oo weekly ku deysano waxaan sugnaa waa in lacagtani to pullback chok soo sameeyso and then daily chok ka bacdina ay supply ga soo aado so daily aan tagina marka kan soo kan usbuuc anaga xir kan daily ga noo fur marka okay daily ga maxaa u jeedaa marka daily ga waxa dhacday inta waxa laga qaaday liquidity ka bacdina kora la aaday waxa dhacay chok markuu dhacay marka this is a new impulsive so maaha so waa kana intuu yeelaado ujeedid impulsive ku cusub waa kana so si lacagtan pullback u soo sameeyso waa inuu 4 hour chok dhaco so 4 hour chok inta waa ka arki kartaa waa kana soo ujeedid meesha ka dhacay chokgaas dhacay hadana lacagtan inta pullback soo sameeyso order block hadda soo qaadatay marka order block soo qaadato waxaan sugeynaa inay soo dhacdo oo ay timaado labadaas demand mid si maxaa dhahay impulsive adan u dhacdo of course lacagta lower way samayn kartaa you have always to be open for that macnaheeda ma hadii uu chok daily dhacay in aysan lower doonan karo suuqa anaga ma market movers kala ay ku xiran tahay meesha u dirayaan laakiin structure ahaan ani hadda waxaan ka sugo waa buy hadii lower dhacana de markaas we will consider anyway pullback ina ka faa'iido sida pullback lower ku rido hadii ku soo ilaa pullback oo hadana uu dhaco oo impulsive kii low so
daily intee maraysaa marka 4 hour hadda marka rabaa inaan falanqeeyo oo idinkan aad ila socotaan okay daily inooda so will we get easier ما يحد ما بعنينا daily كفرنا so حر ما يكن okay مركان حلو daily كده كان فرح okay so هذا عين مركا ماشي يعني انت مركان daily time frame إما لعقتها of course waxay soo samaysaa 4 hour chog oo inta ka dhacay soma so 4 hour chog gaas ay soo dhacday lacagta pullback ma soo sameynin oo 4 hour chog so 4 hour chog daily chog pullback gooda waynu sugeynaa so marka maxaa dhacday lacagtan way sii baxday boos inta ka samaysatay right marka inta boos ka sameysay anaga maxaan sugeynaa waxaan u dhiganaynaa Soomaha this one markan kaas u dhigta maxaan sugayaa marka waxaan sugayaa in 50% lagu soo noqdo waan u jeedaan meelahan for sure hada lower time frame tagno maybe hata 1 hour hadaan tagno waxa ku jiro order block ee doonta because lacagta iska ma soo noqoto meeshaan maxaa dhahay sell to buy ganito ayay tagtay u jeedaan oo demandiga ah so 4 hour can again okay so waxa dhacay marka pullback gaseto this no kana ya 4 hour xadas u yari so waxa dhacay pullback gaseto okay kadib waxa dhacay hadana a new boss markuu dhacay maxaa sugeynaa hadana impulsive gina xisaabna impulsive ka waa interneto boom ilaa inta 50% ma la tagay yes waa la tagay awi ilaa waa sell to buy ganito iyo inside barka xataa waa la soo taabtay ujeedaan so let's do this whole thing and waa soo taabtay way baxday lacag so markii saacadan demand ugu dhowdahay maxaa naga rabaa inaan sameeyno intaan kala soo dhax saarano daily-ga demandiyada 4 hour ku dhex jiro supply-yada oo 4 hour ku dhex jiro okay daily supply so this kan waa mid oo 4 hour ka good kan waa soo baxday lacagti kuma ay noqon korkan so inta waxa ka jiro imbalance and then kan waa la soo mitigate garay kan waa la soo mitigate diray so mid ka hadda aan la mitigate garaynin waa maxay waa kanayto marka lacagtan maxay sameysay lacagtan waxay sameysay markii inta ka baxday waxay soo taabatay daily so kan camal waa midka liquidity-da lagu qaadayo anisa un xisaabsado liquidity-da la qaaday waa some sort of the last boss camal taas xataa la dhigo so impulsive ki ugu dambeeyay badana waa impulsive yaro loo baahan yahay in just maxaa la dhahaa chog ka dhaco so marka maxaa dhacday markay sidaan wax u dhaceen oo liquidity-danito la qaaday waxaa dhacday in lacagtii ay soo taabatay 4 hour demanding ugu horeeyay supply ugu horeeyay ka bacdi ay soo dhacday so kan waa 15 minute chog so lacagtaas ay usoo dhacdo oo soo noqoto waa 50 oo maxaa dhahay pullback soo sameysay waa 15 minute chog dhaco soo kadib waa 4 hour chog dhaco waayo waa daily chog hata waxa dhacay so pullback waa daily waa 4 hour so labadaba markuu soo dhacay waa 15 minute chog dhaca pullbackiisa ka bacdina 4 hour chog dhaca si loo imaado demandigi daily-ga iyo 4 hour ku sii dhex jiro okay so kan hanoo dambeeyay marka 4 hour chog aawe 4 hour chog waa kana tamjeedi 4 hour chog waa kana hatta kan uu ahaan karaa kan hatta uu ahaan karaa kan uu ahaan karaa so let's put in here so maxaa dhacday marka kan wuxuu noqday flip baa dhacay flipka muxuu sameeyay waxaan hadda aan sameynaa every time frame ka dhaca even 1 minute ka tagtid even hadaad tagtid week waxaan dhan way ka dhaca so maxaa dhacday marka waxaa dhacday flip so ujeedaan meeshaan flip ka dhacay flipka markuu dhacay intuu ku noqday flip lower time frame oo inta ka dhacay buu u noqday so ujeedid so order block aaneeto oo meeshaan order block ku jiro soo qaatay let's supply ayuu soo qaatay so in my opinion in my opinion kan hatta uu noqon karaa jogga waliba isaga igala haboon waayo lacagta markay baxday no this is like lower time frame jog kanito
so change of trending 4 hour ka wax kana so supply gaana dhacay lacagta way soo taabatay way soo dhacday hadda maxaa dhacay marka waxa dhacay 4 hour chock right so marka 4 hour chock dhac waxaan sugaynaa lacagta inay noqoto ay soo taabato order block 4 hour ka order block 4 hour ka kana boom ma la soo taabtay yes so ana hadda lacagta waxaan ka sugayaa inay hoos u dhacdo haddii kursi aado waxa weeyaan kaliya waxa weeyaan isleeyahay aniga shakhsiyan in ay demanding aanay 4 hour oo refine ka si aad maxaan niri suuq refine kan xataa uu ka soo dhici karaa laakiin badan wuxuu badan yahay kan oo extreme kin u tago kan haday ka soo dhacdo waa shaqadeedu way dhamaysaa so lacagta waxaan sugnaa waa inay dhacdaa oo boss 4 hour ka ay sameeysaa so inay soo dhacdo 4 hour boss sameeyso noqoto adana 4 hour boss sameeyso ilaa laga tagayo demandigi oo daily u yaala away demanding daily u yaala waa kana so ilaa zone kan ka tagayso waxaan sugeynaa in lacagtanito ay saas u sameeysaa bossaska ma haluu noqon karaa it doesn't matter so saan way marka xaaladda ay tusayso aniga 4 hour ka soo marka maxaan sameynayaa hadda okay kan waxa inta ilaa iyo kan kore oo aan sawirtay waxaan gelinayaa 4 hour so 4 hour okay so 4 hour time frame wuxuu leeyahay xaaladan so hadda waxaan tagayaa marka waxaan tagayaa 15 minutes so 15 minutes intaanan hoos u gudbin idan naftigeeda daarabna inaan ku sameyno waa in aan ku sameeyaa this one kaneta rabaa inaan ku sameeyo 15 minutes go to 15 minutes and then adina zone kaneto so inta igu sameey zoom okay inta waxaan rabnaa ku sameeynaa refine ki 15 minutes so refine ka daa fiirisid kaneta mar inta wuxuu noqday mitigated oo jeeda waa lagu noqday kama soo dhacdan waa lagu noqday so mitigated kama ku soo dhac lagu ma noqon so inside bar kaneta ayaa wuxuu yahay order block oo maxaan dhahay 15 minutes supply boom so maxaan ka sugayaa hadana lacagta way soo dhacday in xadan imbalance ku jiro way noqotay waxa mitigate gareyn kana hadana noqdo waa mitigate gareey hadana kana furmay so intan waxa igu jiro order block waa isku qabanayaa inta xataa waan ka dhigi karaa laakiin kan actually nadiifka ah waa karaa oo order block sax laakiin maxaa dhacayo marar qaarkood kana wuxuu liquid amal ka dhigan karaa so marka aduu maadaama aadan ka qaadanaynin ba anyway 4 hour waa isku daraanay shaqsiin maxaa dhacay lacagta way soo dhacday ma lagu noqdo may intee ka soo dhacday so this is my last order block so 15 minutes waxa ku dhex jiro 4 hour so 4 hour kan 4 hour kan dhigana si aan loo arko 15 minutes okay hadii waan bedelanayna dhimahan hadii ka hadda 4 hour ka aado arkimaysaan okay let's do this one too boom and then let's take this one we gas koran way tagi kartaa because wax baa ku jira 40 saawiga oo marka qarkood ma noqdo laakiin yeah so let's go back to 4 hour ka so kuwaanid way aan order blogyada so ila inta raayaan ka insto kale duwala jibiyay kanita waa kan soo taabtay kii saddexaadna waa kan so kan naga gooy maadaama soo taabtay so labadaanid weeyaan so marka hadda 15 minutes ka marka aan toos u aado 4 hour ka waan xiri karaa okay so hadda 15 minutes ka aado waxaan u jeedaa inay jiraan maxaan dhahay sida tan xaaladda so kana la soo taabtay lacagta maxay sameysay way soo dhacday so lacagta markay soo dhacaysa waxay sameysay chop 15 minutes okay chop 15 minutes hadda fiirisid in effect hadda impulsive koodigo on blogeeda waa kan kore weeyaan okay so kuwan meeshan waa meel liquidity miran oo aan all mitigated weeyaan so aniga waxaan dhigan lahaa intaas
to avoid in lagu qaramsado wala soo taabanin so probably hadda intii lagu noqdo soo taabto waa very possible waa weynay waliba and actually the real one can be this one so hadda intii loo noqdo soo baxo laakiin saan hadda wuu ku bixi karaa so anaga labada dhinac wixii dhaco diyaarba una mar walba so 15 minutes maxaan sugayaa marka waxaa dhacay supply-gaas weli waa unmitigated lacagta way soo dhacday waxay samaysay boss kabacdi haddana way dhacday way soo noqotay booskiyaa la qaaday haddana way dhacday way soo noqotay booskiyaa la qaaday haddana way dhacday way soo noqotay booskaana la qaaday maxaa la order block-gaasi kabacdi way dhacday haddana waxay soo samaysay reversal inta chock fiican ma aysan sameynin chockgeeda intuu ahaa waayo inta markay lacagta haddii saan samayso markay soo noqonayso intay saa samayso inta saan ku samayso kan waa boss oo ku dhex jiro the real chock which is this one hada kan waa chockga in kana waa boss ku dhex jiro soo ma jeedi oo boss kale hadana sameeyay meelaha dhawaa kasoo qaadan kartaa hadda lower time frame filisatid laakiin hadafka waxa waa in loo soo noqdo ugu dambeyntii maybe la durduriyo kaya waayo waa maadaama uu 15 minute ka yahay ahaa downtrend so this can be just mid lagu soo gal 4 hour kan ka wada sorry 4 hour ka daafirisid waxa dhacay chogan soma so chogan dhacay way noqotay maxay kaloo sameeysan lacagta intay boss ka sameeyso boss kanito wuxuu noqon karaa kaliya mid yaro waayo kan boss kanito dhacay bosska markay saa camal tight u yihiin haygooda in la qaado liquidity uu noqdo aad u fududahay so anyway 4 hour boss 15 minutes on bartayno so 4 hour boss waa kana so maxaa dhacday lacagtu way noqotay liquidity-dan waxay noqdeen liquidity saan isu daba yaalan soo ma jeed so waa order flow marka camal markii lagu noqonayo in hal mar la wada qaadaa fudud so order block-gaaliita ayaa la soo qaaday so 4 hour time frame markaan saan u fiirsho ani waxay leedahay suuqan laga yaabo maadaama weli order block ku jirno hadda 4 hour order block-geed ama 4 hour so waa kana soo maha the entire order kankii u horeeyay soo mitigid jiray so kan waa 4 hour laakiin 4 hour waxaa kusii dhex jiro 15 minute refine oo ah kan kore soo jeeda so 15 minute refine kaas hadii inay lacagtan u noqoto still 4 hour order ka lagu jira inay kaas u noqoto oo ay soo dhacda macquul ah okay maxaa kaloo macquul ah inay sidaas ku dhacdo laakiin aniga ahaan lama yaabayo actually ansi inaan waaba ka raja qabaabay inay soo doonato inta ka bacdi markaas ay noo soo dhacdo okay so majidi waxa dhan liquidity meeran waayo so there's huge chance inay kusoo noqoto inay sidaan ku dhacdana waa macquul waayo intaba naftigiisa waxay ka samaysay choog yar daa fiirisid waliba way gaanayda weeyaan kadibna waxaa dhacay meesha news soo baxay waa xustabaa kasoo qaatay newskaneeto kadibna waxay timid order block-gaan sameyay moogada ujeeda order block-gaas maxaa dhahay oo supply-ga kasoo qaada soo noqoto so inay refine-kaas ku noqotana waa macquul laakiin maadaama 15 minute chock inta ka sameysa naftigeeda aniga waxaan lama yaabay hadduu suuqaneeto saas ku daato laakiin still waxaa leeyahay chock-gaan aan loo soo noqonin so inay korkaan soo aadana waa maxaa dhahay waa 50-50 anahno so anaga waa readgaraynayna so maxaan ka sugayaa marka 15 minute-ka waxaan ka sugayaa first of all 15 minute-ka markay hadda inta ka noqonaysay demandiga ugu dambeeyay oo aan la soo sugadaan impulsive-kaneeto aad u weyn yahay actually waxaan hadda isku qabto 50% waa kana so order block-gaanid waa la soo taabtay waa lagu soo noqday yes waa lagu soo noqday waa demanding aaneeto so hadda hadday salsi aadayso intay kasoo noqon kartaa kan wuxuu noqon karaa xataa
flip insha Allah flip waan ka hadli doonaa hadda laba video ay horeyso supply-yada iyo damaanyada mid oo refine-ka iyo mid oo flip-ka so intuu hadda uu kana saan kor uu noqdo uu fail garoobo oo markaas oo dhab looga soo qaatana waa sida kaliya salaaca kan ku hadli karto iyadoo dhafaan aadin so marka taasna waa dhici karta inta timaado in noqoto so mar walbo lacagtan celina waa inuu jiraa supply ama demand push gareynayo reaction-ka laga bixinay xataa hadduusan strong ahayn oo uusan jihada bedeli karin waa in uu reaction baxshaa haddii uu reaction bixin macnaheedu waxa waa very weak and then in la qarabsada aad bay u fududahay so meeshaan in la gudita ayaa ka buuxdo so in hoostaan imaadana waa very maxaa lahay inay baxsaan camal samaysan lacagta intay soo jabsato meelahan ita reaction ka maxaa la ka bixiso soo taawado order block and then hoosaan usoo dhacdo okay so something like that ayaan sugayaa and 4 hour maaha kan waa 15 minute demand so yeah xaaladaas ayuu suuqa ku jiraa waxa kaloo uu suuqan ka dhici karaa maadaama uu inta xataa uu ka dhacay flip-yada waa meelo especially 1 minute-ka iyo haddaad traded ka qaadatid flip-yada waa meelo interesting ah oo ku siin karo continuation inaad kusii socoto lacag sii raacdid actually it's this order block kanida meeshaan waxaa ka dhacay flip waa supply ama demand intuu reaction bixii la jabiyay intaas waa laakiin video ka samayn doonaa oo aan just flip-yada la fiirin doono insha Allah 15 minute flip normally so okay waxaan sugayaa marka kan reaction buu bixiyay suuqa muxuu wuu jabiyay wuu soo noqday wuxuu qaaday kan wuxuu noqday liquidity because inta naftigiisa wuxuu ku jira flip so flip-yada badan so marka because of that kan liquidity ayuu noqday lacagtu way noqotay korkani aade way soo dhacday so hadda maxaan sugaynaa hada way meelaha ku noqoto waxa weekend so subaxda isniinta ku xiran tahay markaas oo kaan waxaan ku aragno so intuu ku noqdo oo uu soo dhaco oo meel ka sii koro inside barkaas soo taabto way dhici kartaa waxa dhici kara oo kale oo usbuuca ka sugayaa inay probably lacagtan ay rifaankan kusoo noqoto oo ay soo dhacdo ama inay inta kusoo noqoto ay soo dhacdo waxa kaloo dhici karta inay saan u jabiso oo inta laga soo noqdo soo dhacdo maxaan ka wadaa kaas kaniyad naftigiis inuu noqdo flip oo mar hadduu flip noqdo marka waxaan ka sugayaa inuu intuu soo dhaco oo kusoo noqdo inta and then uu sii socdo so intaasaan sugaya insha Allahu tacaala I think intaasan ugu filan so ayamahan isbuucan ani waxaan sugaya sal ilaa laga imanayo isbuuc dhan ma aha ilaa laga imanayo demandiga oo dayga oo 4 hour kusii dhex jiro kaas ma aanan sameynin so let's go xogaha yar intaan hoos kasii intaan ka bixin 4 hour ka demandiga ayaan rabaa inaan ku sameeyo refining so 4 hour order block ugu horeeya wax kana 4 hour tamam boom waxaan kaloo sugayaa kan kale order block kusii dhex jiro so this is another order block like weekana meesha uu ku jiraa so intaan isku soo qabanayna and then boom haddii aan rabna xataa weekyadan waan ku dareena just to inta kusoo taato inuusan kaa kala fireenin makaan okay intaas dhaca iyadana waa sugaynaa waxaan kaloo sugaynaa inuu meeshaan lacagta timaado laakiin meeshaan saa ujeedaan waa mitigated kan soo dhac uu noqdo waa la mitigate garay kan ilaa intuu yimid weekan inuu imaanaan jeclaan lahaa week inuu ku mitigate garay jeclaan lahaa laakiin taas ma dhicin like still I mean meeshaan weekan waxbaa ku jiro laakiin so the only way aan u sameyn karo waxa weeye labadan week inaan u dhigto like waa zone oo liquidity ka buuxdo so in la qaramsado kulligood macquul oo la tago weekan soo jeedin weegaas aan dhahay in aan soo weekan uusan soo mitigate garaynin inay tagto waa macquul so that's what I'm expecting pullback inay sameyso suuqa insha Allah arkana wixii dhaco so waxaan sugayaa marka isbuuca neeto bilaawiisa ama ilaa nuskiisa
in suuq anito uu ku jiro ilaa uu demand-yadan imaado kabacdi suuqa nuskiisa kalena waxaan isleeyahay inuu demand-yadan niyada naftigood waxay ku xiran tahay hadduu refine-yada doonanayo in wax saas camal dhacaan kabacdi uu bay soo doonto ama inbo meelahanito bay laga aado ama kan inuu bay ka aado ama kanita naftiisa inuu bay ka aado taasna way dhici kartaa we will see so suuq isbuuc sal waaye badankiisa and then we will see insha Allah sidoo refine ku sameeyo so intaana kusoo gabagabeynaya wa billahi tawfiiq